هدوني كلمة كيلا هذا حالة جودة قبلك سوماليلاند حكومة عصب waxay xilka la wareegtay 12 December 12 December حكومة عصب waxay ku dhawaaqday nabadaan shuruud ku xidhnayn ayay geeska ugu baaqday iyo dadka aynu jaarka nahay iyo geeska aynu ku nool nahayba inagoo fulinayna baaqaas waxaynu sameynay guddi nabadeed waxaynu sameynay nabadii afka kaba inaan odhanay si practical u fulino in nabadii ay samaysanto waxaynu bilownay 2 bilood ka hor dadkii shicibka ahaa hubka u qaatay inay isdifaacaan in la qarameeyo ay ka mid noqdaan ciidamada qaranka iyaga iyo hubkoodii iyo gaadiidkoodii iyo teknikadoodii iyo qoryahoodii waaweynaa hawshaasi way noo socotay waxaan filayaa in dhaxsaw soo aynu soo gunaanadno haddii alla yidhaahdo Somaliland waxay dunida u muujisay inaynu nahay dawlad la macaamili karo waxaynu beesha caalamka u muujinay iyo madaxda gobolkaba inaynu nahay dawlad mas'uul ah dawladdu arrinta way nagu bogaadiyeen Somaliland waxaan u sheegayaa shacbigayga in Somaliland ka mid tahay dawladaha mustaqbalka dhow hadii la yiraahdo haddii la diido iyo haddii cid xanaaqdo Somaliland waxay noqonaysaa Somaliland wana la aqoonsanaya waxaan u sheegaynaa beesha caalamka dadaalada aanu sameeynay ee nabadeynta ee qaramaynta ee gudiyada nabadda inta dunida oo dhan way la socotaa laakiin waxaan u sheegaynaa safarka prime ministerka Soomaaliya ee غير mas'uuliyadu ka muuqato ee ku yimi qayb ka mid ah Somaliland leedahay dhulkeedii wixii khasaare ka dhashay inay Soomaaliya cidii soo dirtay ka mas'uul noqon doonto Somaliland waxaan madaxda gobolka u sheegaynaa oo beesha caalamka u sheegaynaa in nabadana ka shaqeynayno mas'uuliyadda dadka iyaga naga saaran iyo dhulka iyagana aanu difaacayno Somaliland way soconaysaa ciidamadeeda way dhisanaysaa way isdifaacaysaa nabadda ka shaqeynaysaa wixii khasaare ka yimaada safarkaas maqiiqa ah inay Soomaaliya cidii soo dirtay ka mas'uul noqon doonto